wiilkan aad aragtaan 2 sano ayay rafaadinayeen maalin bacad ayay jarayeen ugu dambeynna waa ay toogteen waa wiil Soomaaliyeed oo muslim ah oo barta TikTok caanka ah laakiin ma aaminaysaa gabadhan aad aragtaan oo aan muslim ahayn ayay qabteen saacado ayay hayeen lacag yar oo baad ayay ka qaadeen waana ay sii daayeen oo ma aysan dilin tani waxay meesha ka saaraysaa islaamnimadii ay ku doodayeen kooxda argagixisada al-shabaab maxaa loo dili waayay gabadhan ee loo dilay wiilkan Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee gurigiisa loogu tagay waxaan kula wadaagi doonaa xogta wiilkan caanka ka ah barta TikTok ee al-shabaab 2 sano ay haysteen ugu dambeynna ay toogteen saacadii la soo dhaafay soo dhawow sidee u aragtaa qaybta hoose ee commentiga aan u wada duceeyna dhamaanteen wiilkan naxariista ee been Ilaahay siiyo Ilaahayna u naxariisto qof walbana waa in muuqaalkan uu shargareeya wiilkan aad aragtaan Allah u naxariiste waxa lagu magacaabaa Muscab Cusmaan Cabdi kooxda argagixisada al-shabaab ayuu gacan galay 2024kii gurigiisa oo ku yaala meel lagu magacaabo aqaboy oo u dhow buulo burdo oo gobolka Hiiraan ah ayuu ku sugnaa isagoo halkaas u tagay in uu la noolaado ama uu qaraabasaan ugu tagay hooyadii iyo ehelka qaar oo halkaas deganaa wiilkan aalada TikTok ayuu muuqaalo ku soo bandhigi jiray isagoo miyiga ku sugan inkastoo si toos ama si weyn u sancaan u ahayn haddana waxa ku xirnaa 30,000 oo qofood oo followers u ahaa ama bartiisa TikTok daawan jiray waxa ay wiilkan ku eedeeyeen inuu u shaqeeyo ciidanka dawladda gaar ahaan ciidanka hay'adda nabad sugidda xiriir aanu la sameynay ehelkiisa waxa ay sheegeen in wiilkan uu markii la qabanayo uu ahaa 23 jir weligiisna uusan ku biirin ciidan dawladeed halkaasina ama Hiiraan uu tagay qaraabasalaan ehelkiisa inuu tago laakiin ay farmuqeen rag ka tirsan argagixisada al-shabaab ugu dambeyn wiilkan waa la imaaday gurigii hooyadii waana la watay waxaana la geeyay jilib oo ka tirsan Jubbada Dhexe halkaas oo gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab shalay ayaa lagu fuliyay qasaas ay sheegeen argagixisadu in ay tahay mid uu mudan yahay sida iyagu ay sheegeen waxaana la dilay isaga iyo 9 qof oo kale oo Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed oo dad 40 sano jir ay ku jiraan dhamaantoodna waxay ku eedeeyeen inay yihiin rag basaasiin ama jaajuus oo dawladda federaalka Soomaaliya marka aynu raadino xogta wiilkan dhalinyarada ee Muscabna waxa inoo sheegay inuu san wiligiis noqon ciidan dawladeed balse uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo muuqaalo duubi jiray waxa uu tagi jiray istaadiyo Muqdisho halkaas uu ku duubi jiray muuqaalo silamida magaalada meelaheeda qurxan ayuu tagi jiray muuqaalo ayuu ku duubi jiray bartiisa gaarka ee TikTok argagixisadu waxa la sheegay markay gacanta ku dhigeen way baareen TikTokiisa muuqaaladaas aynu ku arkeen ugu dambeynna waxay tusha ka saareen kiisas inta uu xirnaa isaga dhacay 2025 kiisas dhacay dad la dilay ayay dusha ka saareen oo waxay yiraahdeen kiiskaas ayuu ka dambeeyay laakiin wiilkan dhalinyarada ah waxa uu ahaa wiil ciyaalka xaafadda iska ah oo aanu gelin dhibaatooyinka noocaas oo kala ah gabadhan waa gabar u dhalatay Hindiya waxay safar dhulka kaga soo baxday Somaliland ilaa Djibouti waxaana ay soo martay dhul ay maamulaan argagixisada waliba iyadoo kaamiradeeda gacanta ku haysato ugu dambeynna waxay timid halka la yiraahdo ceel baraf oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan argagixisada halkaas way ku qabteen ma aysan dilin wax dhibaataan uma aysan geysan lacag yar oo ay wadatay ayay si xatooynimo ugu qaateen kadibna waa la soo fasaxay gabadhan Muqdisho iyo timid maalmo ay ku sugnayd kadibna waxay dib ugu laabatay dalka Hindiya kadib ayay fasaxday muuqaaladii ay duubtay iyo waxyaabihii ay kala kulantay argagixisada iyo dhulka kale ee Soomaaliya ay safarka dhulka ku martay marka waxa la isweydiinayaa haddii gabadhan ay dhaafeen laakiin wiilkan dhalinyarada ah ee mustaqbalka lahaa ee Soomaaliyeed ee muslimka ah ay dileen maxay tahay waxa ay ku doodayaan argagixisada al-shabaab waa su'aal jawaab u baahan Allah u naxariisto wiilkan Muscab la yiraahdo eelkiisana sabar iyo iimaan Allah ka siiyo laakiin waqti badan oo ay xiriir la sameeyeen horjoogayaasha ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta al-shabaab waxay u sheegeen in wiilkooda la deenayo laakiin reerka iyagoo sugaya wiilkooda in la deeyo ay ugu dambeyn waxay ka war heleen wiilkooda oo qasaas lagu fulinayo isaga iyo 8 xubnood oo kale meel la joojiyay kuwaas oo lagu toogtay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ee dhulka Soomaaliya oo ah deegaan ay gacanta ku hayaan argagixisada al-shabaab بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta iyo wixii ay mudnayd in badan oo kamid ah horay ayaa halkan looga yiri waxa farxad iyo sharaf weyn inoo ah maanta tallaabadii labaad safar 3 tallaabo ah tallaabadii labaad inaan qaadnay ee aan halkan ku sagootiyeyno
markabkii kii hore sahanka ahay horaan halkan ugu sagootinnay sahankii wixii uu soo sheegay kamera dhalanteediina waa kana Jackry Bay markabka la yidhaahdo noo taagan halkaa oo u socda shaqadaas inuu qabto haddii alla yidhaah lugta saddexaad waxaan u xafladayn doonnaa maalinta haddana ilaahay idankiisa aan jawaabta uu soo saaro iyo waxa uu soo saaro hadalkeeda aan halkan mar kale isugu imaan doonno halkan ama halkii kale 2013 ayay ahayday markii aan bilownay sheekada dalka betrool sahanka betroolka ha la bilaabo ha la xoojiyo dhibaato badan culaysyo badan caqabado badan oo naloo dhigay oo nalaga niyad jibinayey in aan sahankaa la sii wado ayaana soo maray corruption ay ka shaqeeyaan wixii ay dhici rabaan qandaraasyo aan sax ahayn ayay bixiyeen dhulkiiyay bixiyeen kuwa iska ilaaliya la yidhaahdo soomaalideenna ka mid ahoo diiday ama aad iyo aad uga hor yimiday in maxaanku idhahda sahankaa la sameeyo iyo ajnebi intaba ayadoo markaa naloo tusayo maslaxadoo nala leeyahay wixiinaan idiin ilaalinayna waxaa maanta sahminaynaa haddiiba ilaahay uu qadaro oo aan helno shidaalka aan maanta la qodayo haddii ilaahay uu qadaro oo aan helno milyan sano ka badan oo meeshaas ku jiray shidaalkaas waa joognay annaguna marka milyan kala sana muu noogu sii jiraa annaguna baahi iyo macluun maan korkiisa ugu dhimannaa meeqa qof oo Soomaali ah ayaa baahi u dhimatay baahi laga maarmi karay oon u dhimatay haraad gaajo u dhimatay cunto loo heli karay amni darro u dhimatay oo amni loo heli karay intaasoo dhan tabaryari dawladnimo ma shaqayn karto mana socon karto dawladna ummadi ma noqon karto haddii aanay ku filnayn ama awood dhaqaalo oo ay dawladnimada ku ilaaliso ku xoojiso haddii aanay helin Soomaalidu horey uga maahmaahday biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa ka abaal dhici mayno caalamka waqtiyada aad iyo aad u adag noo soo gurmaday waqtiyada maxaan kala duruufaha adag aan ku jirnay noo yimiday waqtiyada amni darrada ugu adag aan qabnayna garab istaagay ee cadowga nala dhiciyey ilaa iyo haddana na garab taagan waan uga mahad celinaynaa laakiin xaqiiqada dhabta oo aan la inkiri karin waxay tahay ma jiro dal marka arrimaha muxuu ahay batroolka laga hadlay Turkiya arrimaha amniga naga saacidaa kuwa kale dalal kalena waa naga saacidaan arrimaha maxaan ku raadayay kaalmada bini aadamka ay naga saacidaa dalal kale waa naga saacidaan laakiin cidina batrool sahankiis nooma samayn noomana qodayso waa Turkiya waxaa intaasi sameeyey haddana u taagan ee samaynayo oo aan maanta halkaa isugu nimid madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan markii ugu horreysay halkaa yimid ee haddana halkan laga dhawaajiyey waxay ahayday waqti adduunyada oo Soomaaliya ka sii jeesanaysa imaatankiisii ay ku soo jeediyey maantana waa mar kale iyo waayahan dambe adduunyada oo shaki qabta in Soomaaliya la maalgeliyo oo $100 milyan oo dollar lagu maalgeliyo oo technology kale oo $100 milyan oo dollar joogaahi ay riski u qaataan ayadoo la leeyahay amni ma aha lama hubo insurance-ga ma ogola inta ma la yeeli kara ayadoo la leeyahay u qaatay in ay yimaadaan oo waxaasoo dhan ay u qaataan ma aha $100 milyan ee sahminta iyo qodista betroolka ku baxday maalgashiga Turkiga kuma eka waxaa maalgashiga qayb weyn ka ah riskiga ay qaateen ayaa la sidiisa maalgashiga qayb ka ah maraakiibtan hadda naag taagan markabka weyn ee Jackry Bay iyo maraakiibta la socotaahi waxa waaye $100 milyan maahna waa billions waaye lacagtooda marka la isku daro intaasoo dhan safar 2 bilood qaatay
oo ay u soo socdeen Soomaaliya si ay u yimaadaan oo wadooyinkii la mari jiray aan la mari karin ay ka soo leexdeen iyo maanta oo ay halkaa nala joogaan wasiirka waa bogaadinayaa waana u mahad celinayaa Soomaaliya markii saddexaad uu yimaado waa laba maroo ka mid ah wuxuu u yimiday arrimahan shidaalka ayuu u yimiday waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeedow dadka waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray waa carruurta habeenkii ay cabsataa waayeelkuna maalintii u cabsadaa soo ma ahayn dabeecadda waxaa ka mid ah dadaa colaadda dhiiran oo nabadda cabsanaya marka nabadaa loo sii socdaa la yidhaha waa baqayaa colaaddii in lagu noqdo uu ka shaqaynayaa xumaantii uu ka shaqaynayaa maxaan ku idhahdaa dhibkii la soo maray oon kulli waaye arag u ahayn uu ka shaqaynayaa wuxuu ka cabsanayaa nabadduu ka baqayaa waa haynaa qofka nabadda ka baqaya colaadda rabaahi inuu madaafiic iyo xabada soo rido bas maaha hadalka carabka afka madaafiic iyo gantaalo waa ka dhib badan yahay waxaad ku hadasho oo aad ku hadaaqdo madaafiic la soo tuuray ma marka qaarkood ayay ka dhib badan yihiin waad maqlaysaan dadka qaarkii ee Soomaalida ah ee aan kaliya aan ku ugu cudurdaari karo ama aan dhihi karo garashadaa ka gaabatay waxa ay ku hadlayaan sidoo kale marka baahida iyo oonka uu jiro dadaa cabsada dhaanku markuu soo noqdo oo reerku biyaha u yimaadaanna dadaa cabsada yaa kaa soo doono ama kuwa kaa dhaca yimaadaan reer hebel amay ahaan biyaana si na amaahi ku dhahaan ama sidaas ayaa weligeedba taariikhda bini aadamka ay u soo jirtay dad wanaagga iyo iftiinka marka loo baxaya baqa colaadda iyo dhibaatada iyo culaysyada marka lagu jirana waxoogaa dareemaya in maxaan ku idhahdaa uu yahay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha qiimeeyaano waayaha ha arkaano waxa hortooda ka muuqda ma aha waxa loo sheegayo waxa hortooda ka muuqda indhahooda ay qabanayaan ha arkaan dadaalada socda ha arkaan ma jiri waayihii la soo dhaafo oo loo joognay ha barbar dhigeen ilaa waxay barbar dhigaan ay haystaan Soomaaliya sida ra'iisul wasaaruhu hadda halkan uga sheegay way dhaqaaqda way socotaa Soomaaliya colaadii Soomaali dhexdeed aheeday ka baxday qola khawaarij la yiraahdo oo caalamka oo dhan dhib ku ah ayaa dhib ku ah ayadiina waa ka sii baxaynaa maalinay dekedan dhex taagnaayeenaa jirtay oo ay konteenarada la furo fiirinayeen oo la yaqiinay hebela maxaan ku idhahdaayey khawaarijta u jooga meesha wariyaa lacagta maxaa u soo diibshubi weysa adiga maxaa u qarisay maxaan ku idhahdaayey 5 konteenar oo ku tumiday adiga muxuu ay badeecada aad uga been sheegtay dadka halkan dhexdeeda ku dhaha ilaahay mahadi maanta meel aad iyo aad u fog ayay jiraan dadka Soomaaliyeed dadaal ay la yimaadeen iyo xoog iyo xoolo ay la yimaadeen oo loogu kaalmeeyay ayaana keenay asbaabtaas waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeedu waxaan rabaa inaan si cad idinkugu xaqiijiyo in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in khayraadka dalkan si hufan oo daahfuran loo maamulo labo in heshiisyada la galay ay noqdaan kuwa ilaalinaya danaha qaranka ma tabaraan guurnaa ma taakan guurnaa mase tabaraan guurnaa Soomaaliya maanta waa maalintii ay tabar guuraysay taaka ma hubnay tabar aan guurno waa maalintay tabar guuraysay tabarteena ka badan ayaan guuraynaa yaan guurnay aad baa maalin weyto naloogu dacaayadeeyay dawladda loogu dacaayadeeyay dawladdan walaalaheen Turkiya lagu dacaayadeeyay arrimahan shidaalka iyo qaybsiga maxaan ku idhahdaay manfacaadka ka imaanayo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheego dawladaha dunida saddexaad ka mid ah oo dalkeeda shidaal laga helay oo shidaalkeedii already oo soo baxay oo
suuqyada tegey 2013 markaan bilownay dardarta waayahan dambe aan gelin haddii aan gelin lahayn maanta shidaalkeenna suuquu ooli lahaa markabkii qodayaa hadda sii socda maanaan dhaheen laakiin nasiib darro maanaan gelin dardar annagoo cabsanayno madaxdii iyo mas-uuliyiintii joogoo baqay waa dhaceen waa boodeen qarkaanay ka dhaceen xaggay la aadeen war khayraadka soomaaliya ka soo baxaya aan rabno billions iyo trillions inuu noqdo walax qof dhici kara waa ka weyn yahay suurtagal ma aha marka waddankaasi nin diblomaasi oo ka socdo ayaa ila kulmay markaasaa wuxuu ku yidhi niyahow waxbaa idinka qaldan soomaaliya haddaad tihiin maxaa naga qaldan annaga waddankeenna 10 sano ka horaa la soo saaray shidaalkii yaa la bilaabay waa la soo saaraa suuquu yaallaa halaha waa la dhacay soomaaliya oo halahaasay shidaalkii ka helaysaa la leeyahay horta dee maydaan sheegina waxaasoo ma jiraan oo kaas ma jiro oo kaas ma jiro shidaalkaani faa'ida laga helayo waa kala qayqaynshatahay wuxuu yidhi wax kasta oo soomaaliya ay heshay nuskeedaan haysanaa udha annaga nuskeed shidaalkeennana suuqaa lagu iibiyuhaa maslaxadda soomaaliya ugu qoran heshiiska ay gashay nuskeedaan haysanaa annaga heshiiskeenna uu qorayey haddana aan helnaa shidaalkeenna waa la iibgeeyey niman yahow niman oo caabboonaa tihiina waxaad yeelaysaan dadka muxuu ahaaye idin maalgelinaya ha iska elina qodobka saddexaad in degaankeenna iyo baddeenna la ilaaliyo shidaalku waa seef laba afle degaanku waa hallay karaa waa environmentu qarribi karaa amni darrow keeni karaa khilaafou keeni karaa waxaas oo dhan dawladda soomaaliya way ka